بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا دمانكين وسلامتهين. سلام كدب maanta waxaa idin wadaa qiso insha allah filaayo dad badan oo xaaladan ku sugan ama dhibaatooyin soo mara insha allah inay ka faa'iidi doonaan. marka insha allah waxaan ka codsanayaa inaad ii sheer garaysiin qisooyinka. kheyr badan ilaahay ha idin siiyo. marka qisadeena waxay ku bilaabanaysaa, waxaa jirtay faamilkaas marka hal gabar ay dhaleen, inta kaleeto waa wiilal. waa faamil iska danyar ah waaye, laakiin ilaahay maasha allah guri weyn oo aada u qurux badan uu siiyo waaye. laakiin wax kale oo hanti kale aysan lahayn, xoogooda ku shaqaystaan. marka cidda wiilal waxay dhaleen xoogaa badan, waxayna ka dhacda qisadan wadamada carabta. marka hal gabaraa marka ku jirta wiilasha, gurigana aada u weyn yahay. marka hooyadii gabadhii markii ay iskuulka waxay go-aan ku gaarta iyadoo yarba iskuulka inay ka reebtay guriga ka tiraahdo shaqada ka qabo, wiilashana markaas ay waxbarashada ay u dirto. hooyadu hooyo xoogaa iska kulkululay ahayd. gabadha haddii shaqadii qaban weydo waa ilmo waa iska garan kartaa xilliga ciyaari laheed oo waxay baran laheyd. yacni markii loo diido, wadankuna wadan dowladle uu yahay oo waxbarashada ummadda dhan waxooda baranayso, way dhib badan tahay. marka haddana haddii waxay oo usii dheer haddana dilka iyo garaaca usii dheer, haddii wax yar qalado macala dharka qof walba dharkiisa way u feereene, cuntada way karinay, guriga waa nadiifine, maamada waxba ma qabato. gabadhii marka rafaadkaasa marka iyo xaaladaasay ku sugneed, ayadoo taagan hal mar lee ilaahay iridaha kaala qofuro ayaa waxaa dhacday nin wadamadan kale carabta ka yimaaday oo ganacsadaa oo lacag leh, oo markaas isku wadan ay yihiin ay yimaada wadankooda. markuu yimaada loo sheegay gabadhaas, markuu yimaada uu soo doontay ninkaasaa ku rabaanayiri inuu ku guursado. ayada marka hadal maba iisa gelin, hayee hore ka tiraahdo, sababtoo ah waxay rabtayba hal mar lee meelay kaga baxdo. waa la joogay markaas waa 18 jir, laakiin waxaa waay 18 jir soo rafaaday waay. hayuu dhahay marka waa lasoo doontay, marka wuxuu yiri waa usoo noqonayaa alaab iyo waxaas iyo gurigii iyo wixii uda diyaarin anaa usoo noqonaya. wuu soo baxay marka wadankiisii uu kusoo noqday, gurigii iyo alaabtii iyo wax walba uu diyaariyey oo maasha allah aada u qurux badan uu diyaariyey. nin dhaqaale heystuu ahaa. marka sidii marka wadankii uu joogo ku keenay, maasha allah gabadhii aaday u farxday. waxay ogaatay inay noloshii ay kasoo baxayso oo dhibka badneed oo garaaca iyo dilka maalin walba lagu hayay. iyadoo ay sidii ay tahay, marka ay walaalaheed waxay barteen, waqti wuu iska socdaa, dadkii dhan waxay wada barteen, walaalaheed kulli jaamacadihii ka wada baxeen. ayadii marka waxba ma aysa soo baranin. ninkeedan markii hore uuba ogaabay inaysa waxba la barinba gabadhaas. kadib waxaa dhacday in maxay ahayd markii ay guursatay, wadamadan marka carabtay aheyd wadankoodii burbur ka dhacay uusa shaqo ka jirin. marka waxaa dhacda marka inay maadaama ayada wadanabada ay joogto, inay walaalaheed ay caawiso fiisooyin iyo wax u dirto. walaalihiiya marka waxay keentay wadanka iyada joogeen ee iyada joogtay iyo ninkeeda. markay keentay hadda ayada mana shaqeyso, ninkaasaa shaqeeya. ee keentay markay keentay walaalkii hadda waa qof wax bartay, walaalihii oo cilmi leh, dadkiisuu dhinac ka raaca. ilaahay dadkii marka
shaqadii iyo wixii barakoobeen waxay kusoo baxeen dadkii dad dhaqaale haysta. ayada marka waxba ma aysa dhalin muddo 12 sano ah ayay ilmo raadinaysaa, waxbana ma aysa dhalinin. ayadii ninkeeda marka dhinaca kalena muusu qabin uma guursaninin, way isku daareen. qof walba wuxuu leeyahay bal meel kale aado isa soo tijaabi. marka ayadu waxay tiri intaan anagu kala tegin bal orod baxe adiga isa soo tijaabiye barnaamij soo guursa hebelow. ninkeedana wuxuu u noqday ilaahay uga dhigay mid inta bini aadan wanaagsan yahay oo baari ah inuu yahay. marka waxaa dhacday uu ka diida. marka isbitaal kasta hadday tageen, meel walba hadday tageen, wuu ka diiday asaga. yani waxna way dhali waayeen, meel walba hadday isbitaal walba tageen wuu ka diiday. marka wuxuu dhahay maxay ahayd adiga kugu qanacsanahay, meelna uma socdo. marka ugu dambeysay isbitaal ay tageen. isbitaalka markay tageen waxaa la dhahay ma dhalaysid, cilada adiga waayaa la dhahay. meel walba ay tagto waxaa la dhahaa cilada adiga waay. markaasaa waxaa dhacday isbitaalkii ugu dambeeyey markuu saas dhahay ayay waxay timaada guriga, way oyday, waxay ay sameyn kartay sameysay. asagii marka waxay tiri iga bax, oday iga tag, bax naa guursaan ku dhahee aniha ii xayirnaanine adduunkaas iska mar. anigu maba dhalay sidaaba la idhahayay tiraahday orad adduunkaas iska mar. marka uu ka xanaaqa markii dambeeto haddaad ani ii dhacday gooni waayuu dhahay, laakiin haddii kaleeto iga daa waxaan aawadid. kadib waxaa dhacday hayay ku tiri ilaan markaasayba eeba uur qaado, lama oga oo ilaahayba ku irsaaqayo. marka waxaa dhacday asagiiba marka intiiba uurkiiba markii saas loo ogaaday oo waxyarba uurkii saas maxay ahayd u soo baxay, ayaa waxaa ku dhacdaba ninkii dhaqaalo daro in hantidii iyo wixiisi dhanba ay baaba-aan. marka ninkii wuxuu noqday faqiir, xaaladiisii saasay noqotay. kadib waxaa dhacday walaalihii shaqada loogu qaban jiray oo xaalkooda uu saas ahaa, ayaa waxaa dhacday xaalkooda uu saas ahaa oo shaqada maxay ahayd loogu qaban jiray ee ayada wadankan keentay oo wadanka ka shaqeysta oo waxaa jooga hantiilayaal noqday. walaalihii marka waxay ka filaysay inay caawiyaan, waa la caawin waayey. wax caawimaad ah waa loo fidin waayey. ayadiyaaba daalac lagu soo raacdo maxaa faqiir u noqotay. waalidkii markay ku dacweysayna waxaa lagu yiraahday, waalidka markay ku dacweysan waxaa lagu yiri adaa qaldanaa lagu dhaha. maxay kuu caawinayaan? ninaaba ku qabee, ninkaaduma wax ku taro. ninkii suukii inta keenay maahay tiraahdo oo intaan maanta noloshan ay soo gaarsiiyey yani ku dadaalay, ilaaha soo gaarsiiyey, laakiin dadaalkiisa uu ka soo baxay oo shaqadan geeyey oo waxaa dhan iskugu daba xira markuu dhaqaalaha haysto soo maahayd.